kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaasha qiimaha badan ku soo dhawaada Wajawa Media halkaad ka helaysaan warar sugan xogo sax ah iyo falanqeyn qiimo badan anigu waxaan ahay Cabdiraxmaan Wajawa waxaan idin soo gudbinayaa maanta qodobadii ugu door corona warkeena caalamka iyo dalka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo madaxtooyada qaranka ku qaabilaya xubno sare oo ka tirsan qoyska boqortooyada Ingiriiska. Madaxweyne Ciro oo safar shaqo uga baxaya London iyo shir caalami ah oo kaga qayb gali doono. Waxaad kaloo aad maqli doontaan dilka ninkii ka ganacsan jiray daroogada Mexico oo nolosha dalkaasi saameysay Masar oo Itoobiya u ballan qaaday bad si ay ugu tanaasusho khilaafka biyaha webiga Niilka. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan u diyaar garooba warkii oo dhameystiran rabtaa inaad la jaanqaado xawaaraha dunida tiknoolajiyada baraadinaysa qalab tayo leh oo aad isku haleyn karto haddaba ku soo dhawow hadaf technology halkan waxaan kugu diyaarinay laptopsyo tayo leh mobilada ugu casrisan oo ila jiraan agabkooda shaashadaha waaweyn iyo dhammaan qalabka IT-ga aad ugu baahan tahay shaqadaada iyo gurigaagaba haddii aad tahay qof ku jira saaxadda warbaahinta gaar ahaan baraha bulshadu waxaan ku haynaa mikrofoono iyo qalabka studio-da oo dhameystiran agab kasta oo IT ah wixii qalab aad ugu baahato xafiis ama guri tayo caalami ah adeeg la isku haleyn karo iyo qiimo kugu habboon waa halka aad kaga iibsan karto qalabka electronics-ka hadaf technology xarunteenu waa Baydhabo agaarka Shaneem Central asugin maanta soo booqo hadaf technology hirka tiknoolajiyada mustaqbalka hadafkeenu waa inaan kugu xirno mustaqbalka tiknoolajiyada nagala soo xiriir taleefanada shaashadaha kaaga muuqda waxaanu ku bilaabaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa madaxtooyada qaranka ku qaabilaya Marwo Sofia oo ah xubin sare oo ka tirsan qoyska boqortooyada Ingiriiska intii uu kulanka socday madaxweynaha Jamhuuriyadda iyo Marwo Sofia ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka soo jireenka laba geesoodka ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo boqortooyada Ingiriiska gaar ahaan iskaashiga dhinacyada waxbarashada iyo horumarinta bulshada madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa Marwo Sofia ku bogaadiyay dadaalkeedii ku aadan u qoreemida arrimaha haweenka iyo carruurta isagoo ku adkeeyay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ahmiyad gooni ah ay siinayso xoojinta iskaashiga labada dal ee arrimahaasi ku qotoma madaxweynaha Somaliland wuxuu safar shaqo uga baxayaa London shir caalami ah si uu uga qayb galo madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa bisha Maaj safar shaqo rasmi ah uga baxaya magaalada London kadib casuumaad uu ka helay Westminster Africa Business Group oo ah urur madax bannaan oo ka shaqeeya xoojinta xiriirka iyo iskaashiga u dhexeeya UK iyo dalalka Afrika inta uu joogo London madaxweynaha wuxuu ka qayb qaadan doonaa kulamo isdhexgal ah oo ay soo qaban qaabisay ururkaasi halkaasi uu kula kulmi doonaa safiirada madaxda siyaasadda ganacsatada iyo wakiilada Afrika ee UK ku sugan kulanka ayaa fursad siinaya madaxweynaha inuu kala hadlo horumarka Somaliland iyo fursadaha iskaashi ee gobolka Westminster Africa Business Group ayaa door muhiim ah ka ciyaarta xoojinta wada shaqeynta siyaasadeed ganacsi iyo diblomaasiyadeed ee u dhexeeya boqortooyada Ingiriiska iyo Afrika iyadoo dhacdooyinkan ay noqdeen madal muhiim ah wada hadalka iyo iskaashiga labada dhinac dilka ninkii ka ganacsan jiray daroogada Mexico oo nolosha dalkaasi saameysay qaar ka mid ah iskuulada dalka Mexico ee waqooyiga qaaradda Ameerika ayaa xirmay kadib dilkii hogaamiyaha ugu doonista badnaa ee ka ganacsan jiray daroogada iyadoo ay dowladdu weli ku jirto feejignaan sare wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa xaqiijiyay in ugu yaraan 74 qof oo isugu jira askar iyo shacab ay ku geeriyoodeen kacdoonkii ay sameeyeen kooxihii daroogada ee uu hogaamin jiray ninkii ay dowladdu dishay iyadoo ku dhowaad 10,000 oo ciidamo ah lagu daadiyay 20 ka mid ah 32 gobol ee dalkaasi ka kooban yahay si ay u ilaaliyaan ammaanka ninka la dilay ayaa ka mid ahaa
ganacsatada waaweyn ee daroogada dalka Mexico iyadoo madaxiisa la duldhigay malaayiin doolarkaasi oo ugu dambeyn ku geeriyooday howlgal ay ciidamada Mexico ku qaadeen maalinimadii Axad iyo toddobaadkani. Masar oo Itoobiya u ballan qaaday si ay ugu tanaasusho khilaafka biyaha webiga Niil. Dowladda Masar ayaa u bandhigtay dowladda Itoobiya inay ka taageeri karto helitaanka marin ay ku gaarto Badda Cas haddii Addis Ababa muujiso dabacsanaan ku saabsan khilaafka biyaha webiga Niilka. Iyagoo arrintan la gaarsiiyey ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Mareykanka, halkaasi oo Trump muujiyey inuu dhexdhexaadin ka sameynayo muranka 10 sano soo jiitamayay. Wararku waxay tilmaamayaan in Masar si dadban uga digtay inay adeegsan karto saameynteeda siyaasadeed iyo militari ay ku leedahay Suudaan, Soomaaliya iyo Djibouti iyo joogitaankeedii Badda Cas si ay uga hor istaagto Itoobiya marin dekedeed haddii heshiis laga gaari waayo biyaha webiga Niilka. Itoobiya oo bad la'aan noqotay tan iyo goonistaagii Eritrea 1993 ayaa ku adkaysanaysa baahideedii degdega ee marin badeed si ay u xaqiijiso kobaca dhaqaale. Arrintan ayaa ka dhigan in biyaha Niilka iyo Badda Cas ay noqdeen laba qodob oo si toos ah isugu xidhan khilaafka labada dal. Maamulka Waqooyi Bari oo digniin ula soo diray Puntland. Maamulada Waqooyi Bari iyo Puntland oo qarka u saaran inay isfarsaaraan iyadoo dowladda federaalka doonayso inay ku qabato doorasho dadweyne deegaanadaasi. Xiisad siyaasadeed ayaa ka dhex qaraxday maamulada Puntland iyo Waqooyi Bari kadib markii ay Puntland si cad uga hortimid qorshe ay sheegtay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku doonayso inay doorasho ugu qabato deegaano ka tirsan Waqooyi Bari. Arrintan ayaa si degdeg ah u kicisay muran siyaasadeed, hanjabaado iyo cabsi laga qabo in xiisaddu ay isu beddesho iska horimaad hubeysan oo dhexmara labada maamul. Puntland ayaa ku adkaysatay in Sool iyo Sanaag ay ka mid yihiin dhulkeeda dastuuriga ah, isla markaana lagu qaban karin wax doorasho ah oon ogolaansho laga haysan Garowe. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland ayaa ku dooday in dastuurkoodii weli si rasmi ah uga mid yihiin goboladaasi, sidaa daraaddeed aysan jirin cid kale oo sharci u leh inay ka hirgeliso doorasho gaar ahaan midda u janjeerta Villa Soomaaliya. Dhanka kale, maamulka Waqooyi Bari oo xaruntiisi tahay Laascaanood ayaa si kulul ugu jawaabay hadalka Puntland iyagoo ku eedeeyay fargelin toos ah iyo isku day lagu weeqayo jiritaanka maamulkooda. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Waqooyi Bari oo ka jawaabaysa hadalka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland ayaa fariin adag u dirtay Siciid Deni iyadoo u caddaysay in deegaanadaasi ay ka tirsan yihiin Waqooyi Bari isla markaana aysan aqbali doonin wax sheegasho ah oo ka timaada Garowe. Puntland ayaa gebi ahaanba aqoonsanayn maamulka Waqooyi Bari waxayna ku tilmaantaa midaan sharci haysan, halka Waqooyi Bari ay ku doodo inay ku timid rabitaanka shacabka deegaanadaasi kadib kacdoonkii hubeysanaa ee dadka deegaanka Somaliland ay kaga saareen Laascaanood. Waxaana sidaas awgeeda khilaafkan maahan mid ku kooban arrin doorasho oo keliya, balse waa mid salka ku haya loolan dhuleed, sharciyad siyaasadeed, cidda leh matalaadda dhabta ee bulshada ku dhaqan Sool iyo Sanaag. Xiisadan cusub ayaa timid xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay ku howlan tahay qorshaha doorashooyin qof iyo cod oo la doonayo in dalka laga hirgeliyo. Qorshahaasi oo horey uga hor yimaadeen qaar ka mid ah maamulada dalka, gaar ahaan Puntland iyo Jubbaland. Haddii ay Villa Soomaaliya isku daydo in doorasho ka qabato deegaanada muranka uu ku taagan yahay, waxaa suuragal ah baa la yiri in tilaabadaasi ay kiciso fargelin degdeg ah oo ka timaada Puntland, taasi oo horseedi karta isku dhac siyaasadeed, mid amni, sida ay qabaan dadka arrimaha siyaasadda ka faalooda. Warar hoose aan helay ayaa sheegaya in Puntland ay kordhisay dhaqdhaqaaqa ciidamada ee ku sugan soohimaha ay la wadaagto Waqooyi Bari, inkastoo aanay jirin war rasmi ah oo xaqiijinaya isku diyaarin dagaal. Sidoo kale, Waqooyi Bari ayaa la sheegay inay wado abaabul bulsho iyo mid amni si ay uga hortagto waxa ay ku tilmaantay fargelin qaawan oo Siciid Deni uu ku hayo deegaano nabdoon. Arrintan Galdogob ayaa sii horinaysa dagaalka maadaama degmadaasi ay ku taalo xuduud istiraatiijiyad ah oo xiriirisa deegaanada Puntland iyo Galmudug. Puntland ayaa u aragta Galdogob inay si buuxda uga mid tahay maamulkeeda, halka dowladda federaalku ay ku doodeyso inay xaq u leedahay inay doorasho ku qabato meel kasta oo ka mid ah dhulka jamhuuriyadda. Cabsi weyn ayaa laga muujinayaa in hadallada kulkulul iyo mowqifyada isdiidan ay u gudbaan heer ficil ah, gaar ahaan haddii ciidamada la iska hor fadhiisiyo deegaanada xasaasiga ah. Bulshada ku nool Sool iyo Sanaag ayaa ah
kuwa u nugul saameynta khilaafka maadaama horey u soo mareen dagaalo iyo barakac badan. Khilaafkan ayaa ah mid iftiiminaya nuglaanta nidaamka federaalka Soomaaliya iyadoo weli si cad aan loo qeexin xuduudaha iyo awoodaha maamulada. Dastuurka ku-meelgaarka ee dalka ayaa ka tegay arrimo badan oo u baahan heshiis siyaasadeed, balse heshiiskaasi weli ma dhicin. Taasi ayaa sababtay in mar kasta oo ay timaada arrin doorasho ah ama awood qaybsi la xiriirta uu dib u soo laabto muran la mid ah kan hadda taagan. Guud ahaan waxaan inta kusoo gabagabeynayaa warkii aad kala socoteen waa Jaba Media. Intaynu warkan war lamid ah aan dib ugu kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.